warmurtiyeed baydhaba taariikh 13 ilaa 16 May 2018 shirkii labaad ee golaha iskaashiga dawlad goboleedyada oo lagu qabtay magaalada madaxda ku meel gaarka ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee baydhaba ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan xubnaha hogaamiyaasha golaha madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ahna gudoomiyaha golaha madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare ahna gudoomiye ku-xigeenka golaha madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaan madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Ducaale Geelle iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo martigeliyay shirka Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan shirka oo socday intii u dhaxaysay 13 ilaa 16 waxaa ka soo qayb galay madax kale oo kor u dhaafaysay ilaa iyo 100 ergey oo ka mid ahaayeen gudoomiyaasha baarlamaanada xildhibaano iyo wasiirro kala matalayay dawlad goboleedyada ku bahoobay golaha iskaashiga muddadii 3 bari ahayd ee shirku socday waxay madaxdu wada tashi ka yeesheen arrimo badan oo diiradda lagu saarayay amniga siyaasadda iyo xaaladaha bini'aadanimo ee dalka waxaana gabagabadii shirka ka soo baxay warmartiyeedkan arrimaha amniga kadib markii qiimeyn falanqayn iyo wada tashi dheer laga yeeshay arrimaha amniga ee dawlad goboleedyada iyo dadaalada ku aadan sugidda amniga dalka number 1 wuxuu goluhu si guud u soo dhaweeyay qorshaha amniga ku meel gaarka ah kaasoo loo arkay inuu noqon karo qorshe ugu dambeynta horseedi kara in Soomaalidu amnigeeda la wareegto haddii la fuliyo sidaas darteed goluhu wuxuu ku adkaynayaa dhammaan matalayaasha inay si wada jir ah uga wada qayb qaataan fulinta qorshaha iyadoo diiradda la saarayo arrimaha hortabinta leh sida xoreynta deegaamada weli gacanta argagixisada ku jira iyo furidda wadooyinka 2 goluhu wuxuu walaac ka muujiyay dagaalka ka soo cusboonaaday Tukarraq oo ka mid ah deegaamada Puntland oo May 15keedii ciidamada Somaliland weerar ku soo qaadeen waxaana goluhu ku baaqayaa in si degdeg ah dagaalka loo joojiyo 3 goluhu wuxuu dhaliilay horumarka laga sameeyay ilaa hadda fulinta qorshaha amniga qaranka ee horey la isugu raacay sidaa darteed goluhu wuxuu ku baaqayaa in la dedejiyo fulinta dhammaan qodobada uu ka kooban yahay qorshaha amniga qaranka si loo xaqiijiyo in dalka laga xoreeyo argagixisada 4 sidoo kale goluhu wuxuu niyad jab ka muujiyay in ilaa iyo hadda dawladda dhexe aysan wax tilaabo ah ka qaadin ballanqaadkii ku xusnaa qodobka 1.2 ama 1.2 ee heshiiskii golaha amniga qaranka ee la gaaray 10kii bishii Febraayo 2018 kaasoo sheegayay xigasho dawladda federaalku waxay ka caawinaysaa ciidamada booliska dawlad goboleedyada oo ay ku jiraan daraawiishtu hub saanad agab ciidan raashin daawo gunno tababar iyo tayeyn ee kala si ay uga qayb qaataan kuwaasoo kala qayb qaadan doona ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed hawlgallada ciidan ee lagula dagaalamaya argagixisada sidaa daraadeed wuxuu goluhu si adag ugu baaqayaa dawladda dhexe inay ka dhabayso ballanqaadkeedii ku aadanaa taakulaynta ciidamada dawlad goboleedyada gaar ahaan in la dardargeliyo qaybinta agabka ciidan ee hadda yaala si hawlgallada ciidan ee xoreynta dalka loogu isticmaalo 5 goluhu wuxuu isla qiray isla markaana taariikhdu muujinaysaa in ciidamada dawlad goboleedyadu ay yihiin kuwa ugu habboon marka ay timaado la dagaalanka argagixisada ama nabadiidka waxaase cad in dawladda dhexe ka cagajiidayso garwaaqsiga doorkaas shariifka ah sidaa darteed goluhu wuxuu ugu baaqayaa dawladda dhexe iyo beesha caalamka in ciidamada dawlad goboleedyada laga taageero arrimaha agabka ciidanka hubka rasaasta iyo tababarada sidii horey la isugu raacay iyadoo gabagabo hadda maraysa tirinta iyo hubinta lagu qiimeynayo
heerka diyaargarow howlgallada ciidamada. ka sokow inay jiraan dadaallo qorshayaal iyo maalgelinno mug leh oo ku aadan arrimaha amniga, haddana waxaa jira caqabado amni darro oo sii kordhaya, taasoo loo tirinayo in ay ugu wacan tahay in aysan jirin isku tashi dhab ah oo Soomaaliyeed oo loo dhan yahay. middaas oo la'aanteed ay adkaanayso in Soomaalidu amnigeeda gacanteeda dib ugu soo ceshato. sidaa darteed goluhu wuxuu ku baaqayaa in la abuuro qorshe howlfulineed oo dhab ah iyo dadkii fulin lahaa oo loo dhan yahay. Number 2, arrimaha siyaasadda. muddadii shirku socday madaxdu waxay si qoto dheer uga wada hadleen arrimaha siyaasadda si guud iyo si gaar ahaaneed kuwa khuseeya dowlad goboleedyada. goluhu wuxuu dhammaystiray qaab dhismeedka golaha iyadoo wasaaradaha dowlad goboleedyada intii islehba oo isku shaqo ah by discipline loo sameeyey guddi hoosaadyo shaqo interministerial working group, taas oo wax weyn ka tari doonta xiriirka wada shaqaynta iyo iskaashiga wasaaradaha heer dowlad goboleed. 2, goluhu wuxuu soo dhaweeyey horumarka laga gaaray arrimaha siyaasadda iyo go'aanka isku dhafidda baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo door weyn ka qaadanaya xasiloonida iyo nabadda dalka iyo tan Galmudug si gaar ahaaneed. waxaa kaloo goluhu ku dhiirigeliyey maamulka Galmudug inay dhammaystiraan arrimaha weli qabyada ka ah wada hadallada, waxayna mudan yihiin in beesha caalamka iyo deeq-bixiyayaashu gacan taageeraha ka geystaan dadaalka nabadeed iyo maamul dhisid ee hogaaminaya madaxweynaha Galmudug. sidoo kale wuxuu goluhu soo dhaweeyey geedi socodka wada xaajoodka arrimaha federaaleynta ee u dhaxeeya labada heer dowladeed oo laga sameeyo horumar wax ku ool ah sida habka doorashada iyo kheyraad qaybsiga. sida uu qabo qodobka 53 ee dastuurka, dowladda federaalku waa inay kala tashato dowlad goboleedyada arrimaha saameynta ku yeelan kara danaha dadka dowlad goboleedyada si looga fogaado khilaaf siyaasadeed, waana in go'aanada la qaadanaya ay noqdaan kuwo ku salaysan danta dadka iyo dalka. 5, iyadoo laga duulaya nooca dowladnimo ee dadka Soomaaliyeed doorteen oo ah habka federaalka, goluhu waxay isla qireen in mas'uuliyadda koowaad ee xal u helidda dhibaatooyinka dhaqaale, amni, ganacsi iyo bulsho ee dadka dowlad goboleedyada haysta ama soo food saara uu waajib ka saaran yahay hogaamiyaashooda. sidaas darteed goluhu wuxuu soo dhaweynayaa cid kasta oo gacan ka taageero ah ka geysan karta baahiyahooda. goluhu wuxuu walaac ka muujiyey xiriirka sii xumaanaya ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo wadamada isu taga Imaaraadka Carabta iyo boqortooyada Sacuudiga, taasoo loo arko in dowladdu dhinac la jirto, wayna caddahay in haddii uu khilaafkaasi sii socdo saameyn ku yeelan doonto xiriirka soo jireenka ah ee ganacsi, deegaan, dhaqaale iyo maaliyadeed ee saddexda dal iyo saddexda shacab wadaagaan. sidaa darteed goluhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda federaalka inay ka shaqayso dhankeeda hagaajinta xiriirka iyadoo la tixgelinayo danaha dadka iyo dalka Soomaaliyeed. 7, waxaa jira dhaqaale badan oo ku aadan kabidda miisaaniyadda dalka oo dowladda dhexe ka hesho dalal iyo hay-ado kale oo deeq-bixiyaal ah. mid marta xisaabta dhexe ee dowladda dhexe ama ha noqoto mid aan soo marin. waxaase dhacday in dhaqaalahaas aysan waxba ka soo gaarin dowlad goboleedyada. sidaa darteed wuxuu goluhu ku dhiirigelinayaa dalalkaas iyo hay-adahaas inay sameeyaan qoondayn ku salaysan labada heer dowladeed si loo xaqiijiyo midnimada iyo isku haynta dalka. 8, goluhu wuxuu garowsaday ka maqnaanshaha dowlad goboleedka Jubbaland ee shirka daahfurka dib u eegista dastuurka ee ka socda
magaalada Muqdisho isla markaana waxaa lagu qancay ka maqnaanshahooda ku yimid inay ku timid cabasho dhab ah oo aan si hore loo sii xalinin sidaa darteed waxaana goluhu ku baaqayaa in si degdeg ah dagaalka loo joojiyo shirkii labaad ee golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo lagu qabtay magaalada madaxda ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Baydhabo ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan xubnaha hogaamiyaasha golaha madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ahna gudoomiyaha golaha madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Mudane Maxamed Cabdi Waare ahna gudoomiye ku-xigeenka golaha madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaan madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Ducaale Geelle iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo martigeliyay shirka Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan shirka oo socday intii u dhaxaysay 13 ilaa 16 waxaa ka soo qayb galay madax kale oo kor u dhaafaysay ilaa iyo 100 ergey oo ka mid ahaayeen gudoomiyaasha baarlamaanada xildhibaano iyo wasiirro kala matalayay dowlad goboleedyada ku bahoobay golaha iskaashiga muddadii 3 bari ahayd ee shirku socday waxay madaxdu wada tashi ka yeesheen arrimo badan oo diiradda lagu saarayay amniga siyaasadda iyo xaaladaha bini'aadanimo ee dalka waxaana gabagabadii shirka ka soo baxay warmartiyeedkan arrimaha amniga kadib markii qiimeyn falanqayn iyo wada tashi dheer laga yeeshay arrimaha amniga ee dowlad goboleedyada iyo dadaalada ku aadan sugidda amniga dalka number 1 wuxuu goluhu si guud u soo dhaweeyay qorshaha amniga ku meel gaarka ah kaasoo loo arkay inuu noqon karo qorshe ugu dambeynta horseedi kara in Soomaalidu amnigeeda la wareegto haddii la fuliyo sidaas darteed goluhu wuxuu ku adkaynayaa dhammaan matalayaasha inay si wada jir ah uga wada qayb qaataan fulinta qorshaha iyadoo diiradda la saarayo arrimaha hortabinta leh sida xoreynta deegaamada weli gacanta argagixisada ku jira iyo furidda wadooyinka 2 goluhu wuxuu walaac ka muujiyay dagaalka ka soo cusboonaaday Tukarraq oo ka mid ah deegaamada Puntland oo May 15keedii ciidamada Somaliland weerar ku soo qaadeen waxaana goluhu ku baaqayaa in si degdeg ah dagaalka loo joojiyo 3 goluhu wuxuu dhaliilay horumarka laga sameeyay ilaa hadda fulinta qorshaha amniga qaranka ee horey la isugu raacay sidaa darteed goluhu wuxuu ku baaqayaa in la dedejiyo fulinta dhammaan qodobada uu ka kooban yahay qorshaha amniga qaranka si loo xaqiijiyo in dalka laga xoreeyo argagixisada 4 sidoo kale goluhu wuxuu niyad jab ka muujiyay in ilaa iyo hadda dowladda dhexe aysan wax tilaabo ah ka qaadin ballanqaadkii ku xusnaa qodobka 1.2 ama 1.2 ee heshiiskii golaha amniga qaranka ee la gaaray 10kii bishii Febraayo 2018 kaasoo sheegayay xigasho dowladda federaalku waxay ka caawinaysaa ciidamada booliska dowlad goboleedyada oo ay ku jiraan daraawiishtu hub saanad agab ciidan raashin daawo gunno tababar iyo tayayn ee kala si ay uga qayb kuwaasoo kala qayb qaadan doona ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed hawlgallada ciidan ee lagula dagaalamaya argagixisada sidaa daraadeed wuxuu goluhu si adag ugu baaqayaa dowladda dhexe inay ka dhabayso ballanqaadkeedii ku aadanaa taakulaynta ciidamada dowlad goboleedyada gaar ahaan in la dardargeliyo qaybinta agabka ciidan ee hadda yaala si hawlgallada ciidan ee xoreynta dalka loogu isticmaalo 5 goluhu wuxuu isla qiray isla markaana taariikhdu muujinaysaa in ciidamada dowlad goboleedyadu ay yihiin kuwa ugu habboon marka ay timaado la dagaalanka argagixisada ama nabadiidka waxaase cad in dowladda dhexe ka cagajiidayso garwaaqsiga doorkaas shariifka ah sidaa darteed goluhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda dhexe iyo beesha caalamka in ciidamada dowlad goboleedyada laga taageero arrimaha agabka ciidanka hubka rasaasta iyo tababarada
sidii horey la isugu raacay iyadoo gabagabo hadda maraysa tirinta iyo hubinta lagu qiimeynayo heerka diyaargarow howlgallada ciidamada. ka sokow inay jiraan dadaallo qorshayaal iyo maalgelinno mug leh oo ku aadan arrimaha amniga, haddana waxaa jira caqabado amni darro oo sii kordhaya, taasoo loo tirinayo in ay ugu wacan tahay in aysan jirin isku tashi dhab ah oo Soomaaliyeed oo loo dhan yahay. middaas oo la'aanteed ay adkaanayso in Soomaalidu amnigeeda gacanteeda dib ugu soo ceshato. sidaa darteed goluhu wuxuu ku baaqayaa in la abuuro qorshe howlfulineed oo dhab ah iyo dadkii fulin lahaa oo loo dhan yahay. Number 2, arrimaha siyaasadda. muddadii shirku socday madaxdu waxay si qoto dheer uga wada hadleen arrimaha siyaasadda si guud iyo si gaar ahaaneed kuwa khuseeya dowlad goboleedyada. goluhu wuxuu dhammaystiray qaab dhismeedka golaha iyadoo wasaaradaha dowlad goboleedyada intii islehba oo isku shaqo ah by discipline loo sameeyey guddi hoosaadyo shaqo interministerial working group, taas oo wax weyn ka tari doonta xiriirka wada shaqaynta iyo iskaashiga wasaaradaha heer dowlad goboleed. 2, goluhu wuxuu soo dhaweeyey horumarka laga gaaray arrimaha siyaasadda iyo go'aanka isku dhafidda baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo door weyn ka qaadanaya xasiloonida iyo nabadda dalka iyo tan Galmudug si gaar ahaaneed. waxaa kaloo goluhu ku dhiirigeliyey maamulka Galmudug inay dhammaystiraan arrimaha weli qabyada ka ah wada hadallada, waxayna mudan yihiin in beesha caalamka iyo deeq-bixiyayaashu gacan taageeraha ka geystaan dadaalka nabadeed iyo maamul dhisid ee hogaaminaya madaxweynaha Galmudug. sidoo kale wuxuu goluhu soo dhaweeyey geedi socodka wada xaajoodka arrimaha federaaleynta ee u dhaxeeya labada heer dowladeed oo laga sameeyo horumar wax ku ool ah sida habka doorashada iyo kheyraad qaybsiga. sida uu qabo qodobka 53 ee dastuurka, dowladda federaalku waa inay kala tashato dowlad goboleedyada arrimaha saameynta ku yeelan kara danaha dadka dowlad goboleedyada si looga fogaado khilaaf siyaasadeed, waana in go'aanada la qaadanaya ay noqdaan kuwo ku salaysan danta dadka iyo dalka. 5, iyadoo laga duulayo nooca dowladnimo ee dadka Soomaaliyeed doorteen oo habka federaalka, goluhu waxay isla qireen in mas'uuliyadda koowaad ee xal u helidda dhibaatooyinka dhaqaale, amni, ganacsi iyo bulsho ee dadka dowlad goboleedyada haysta ama soo food saara uu waajib ka saaran yahay hogaamiyaashooda. sidaas darteed goluhu wuxuu soo dhaweynayaa cid kasta oo gacan ka taageero ah ka geysan karta baahiyahooda. goluhu wuxuu walaac ka muujiyey xiriirka sii xumaanaya ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo wadamada isu taga Imaaraadka Carabta iyo boqortooyada Sacuudiga, taasoo loo arko in dowladdu dhinac la jirto, wayna caddahay in haddii uu khilaafkaasi sii socdo saameyn ku yeelan doonto xiriirka soo jireenka ah ee ganacsi, deegaan, dhaqaale iyo maaliyadeed ee saddexda dal iyo saddexda shacab wadaagaan. sidaa darteed goluhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda federaalka inay ka shaqayso dhankeeda hagaajinta xiriirka iyadoo la tixgelinayo danaha dadka iyo dalka Soomaaliyeed. 7, waxaa jira dhaqaale badan oo ku aadan kabidda miisaaniyadda dalka oo dowladda dhexe ka hesho dalal iyo hay-ado kale oo deeq-bixiyaal ah. mid marta xisaabta dhexe ee dowladda dhexe ama ha noqoto mid aan soo marin. waxaase dhacday in dhaqaalahaas aysan waxba ka soo gaarin dowlad goboleedyada. sidaa darteed wuxuu goluhu ku dhiirigelinayaa dalalkaas iyo hay-adahaas inay sameeyaan qoondayn ku salaysan labada heer dowladeed si loo xaqiijiyo midnimada iyo isku haynta dalka. 8, goluhu wuxuu garwaaqsaday
wuxuu garowsaday ka maqnaanshaha dowlad goboleedka Jubbaland ee shirka daahfurka dib u eegista dastuurka ee ka socda magaalada Muqdisho isla markaana waxaa lagu qanacay ka maqnaanshahooda ku yimid inay ku timid cabasho dhab ah oo aan si hore loo sii xallinin sidaa darteed wasaaradda dastuurka federaalka waxaa lagu adkaynayaa inay wada hadal dhab ah kala yeelato Jubbaland tabashadooda si xal waara looga gaaro ismariwaaga jira oo caqabad ku noqon kara geedi socodka dib u eegista dastuurka 9 waxaa jira in aan weli la hawlgelinin xubnihii dowlad goboleedyada u soo kala magacowdeen gudiyada madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo guddiga baarlamaanka ee la socodka iyo korjoogtaynta dib u eegista dastuurka sidaa darteed goluhu wuxuu si adag ugu wargelinayaa wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka inaysan gudiyada dastuurka bilaabin wax shaqo ah oo aysan ka mid ahayn xubnaha dowlad goboleedyadu 10 goluhu wuxuu walaac ka muujiyay faragelinta mar walba lagu hayo hanaanka siyaasadeed ee dowlad goboleedyada taas oo keeni karta amni darro baahda sidaa darteed goluhu wuxuu ku baaqayaa in si degdeg ah loo joojiyo faragelintaas isla markaana xoogga la saaro la dagaalanka argagixisada iyo dib u dhiska waddanka 3 xaaladaha bani aadamnimo daadad ka dhashay fatahaadaha webiyada Jubba iyo Shabeelle oo ay weheliyaan roobab lixaad leh oo si isdaba jooga uga da'aya deegaamada ku dheeraran labada webi ilaa iyo bartamihii bishii Abriil ayaa khasaare naf iyo maalba leh u geystay deegaamo badan oo dalka ka mid ah sidaa darteed goluhu wuxuu ugu baaqayaa xukuumadda federaalka Soomaaliyeed ganacsatada Soomaaliyeed qurbo-joogta Soomaaliyeed culimaadudiinka Soomaaliyeed hay'adaha samafalka qaramada midoobay iyo dadbixiyaasha inay gurmad degdeg ah oo bini'aadamo la gaaraan dadka ku nool dowlad goboleedyada Hirshabeelle Jubbaland iyo Koonfur Galbeed gabagabo iyo mahadcelin goluhu wuxuu madaxweynaha iyo shacabka reer Koonfur Galbeed uga mahadcelinayaa soo dhaweynta iyo martigelinta iyo sugidda ammaanka oo ciidanka Koonfur Galbeed iyo kuwa AMISOM si wada jir ah isaga kaashanayeen intii uu shirku socday 2 goluhu wuxuu mahadnaq iyo bogaadin aan la soo koobi karin u soo jeedinayaa wadamada walaalaheen ah ee ciidamada Soomaaliya ugu deeqay ee AMISOM kuwaas oo la'aantood aysan suuragal noqoteen in horumar la taaban karo laga gaaro arrimaha amniga sidoo kale goluhu